horeen ku soo dhawo barnaamijkeena Saxaaba TV iyo su'aalaha diiniga ah ugu bilow magacaaga iyo soo aragtid barnaamijkan aad ugu faraxsanahay in barnaamijka ka soo qayb galo in magaceygana waxa waa Beelo ka soo dhaweynaya ma sha Allah su'aasha waxa ku leedahay sheeg gabadha ugu horeysay saxaabiyada ee dishan Yahuudiya iyada lagu jiro dagaal su'aasha jawaabteeda hadaa isku dayo waxay noqonaysaa Safiya bintu Abdulmudallib ma santahay su'aasha la ku weydiinaya sheeg gabar aabaheed nabi yahay wiilkeedu nabi yahay ninkeedu nabi yahay walaalkeedna waa nabi ما قانع كحواي بيلا ما سنت كسر وورين سوى أرتا برامج كسؤالها الدينية الصحابة TV أدوك ما قاعد نقول بالله واي يسأل أرتا برامج كان سؤال مركو أوريس عند غني علي والله ما قرأت وسود ويني سؤالها الدينية وما شاء الله عقبتان جماعة والبا سياد ما أسود ويني مركو وإذا كو ويني هم بلييني برامج كان دينية أو دان إذا كنت تاجر سنة وما سنت هاي ما قاعد يقولي ما قاعد عند غني علي والله عبد الغني علي سؤال عن كويدنا سؤال دينية سؤال عن كل هذا الشيء مدحوينه إسلامك أما أميرك إسلامك مدحوينها حل جل فرتي بيت المقدس عمر بن قداب ما شاء الله ما سنتهاي عبد الغني ما سنتها سيد ونحسن يعني أنا غير قاعد برنامج كنا سؤالها دينية مقالة قال كعية صحابة TV ما سنتهاي سودويني ما شاء الله ما سنتهاي أولا إلهي ومهاد إسكاله وثانيا وحنم هاد عرينا هي لأن يراد إسباب الشيء wacyigelinta barashada diinta dadka ku himad gelinaysa hadii qof walba oo dariiqan mara uu og yahay diinta in wax laga weydiinayo wuxuu ku qasban yahay wixii dibadda loogu sheegay inuu weelayo wixii ka maqan inuu raadiyo dad badan oo hadda waxaan ognahay goboladhan oo waxaan ognahay markii la weydiiyay su'aalaha aad ugu fudud caruurta iyo ay garanayaan dadka xataa aan madaarista waligood tagna ka jawaabi karaan ka jawaabi waaday hadda su'aalaha ugu adag inay ka jawaabaan markii lagu wacyigeliyo lagu himad geliyay marka ragii arintan abaabulay baradiintaada aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya Saxaaba TV waan idin mahad celinaynaa waan idin la shaqaynaynaa ama almarinta xataa waan kala qayb qaadanaynaa insha Allah ta'ala dhalinyarada dadka lagu himad gelinayo ilaa qofka hadduu amal mar helayo waa shaqaynaya waan kala qayb qaadanaynaa waan idin garab taaganahay adinkana Allah idin barakeeyo Allah idin guuleeyo ma sha Allah waxaan ku jirnaa barnaamijkeena su'aalaha ee Saxaaba TV ee arrimaha diinta oo galabta Jimcada iyo Khamiista insha Allah waa halkan ka daawataan markaan waxaan weydiin doonaa mid kamid ah culimada gobolka marka hore magacaaga noogu bilow iyo sida u aragtay barnaamijkeena su'aalaha diiniga sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم magacaygu waxa weey waa Qaliif Maxamed Cilmi kamid ah shacabka gaalkacyo runtii Saxaaba TV aad ayaa u taageeraa barnaamijka wato iyo arrimaha diinta iyo sidii diinta oo shaqeynaysa waxaan leeyahay hore u sii soco ma santahay Sheekh Khaliif waa ma santa sida wanaagsan oo regelisay su'aasha ayaan kuma ku weydiin doonaa Sheekh Khaliif oo waxaad sheegtaa gabadhii ugu horeysay muslimada nin Yahuudiya dishay ayadoo lagu jiro dagaal gabadha magaceeda ku weydiinaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim hadaa isku dayo gabadhaas magaceeda waa Safiya bintu Abdulmudallib nabiga eedadiisa sallallahu alayhi wasallam mubarak alayhi وهرين كسر دو برامج كسؤالها برامج كبرد دين هذا صحابة TV وهرين مقعة يسوي أرتب برامج مقعة وأنا في السوق وأنا كده برنامج وأنا كفرح سنة مانتا السؤال أن كويدنا حوي شاك سنة كيلو واجبي حج كم مدي هاي أركان الإسلام كمثل كم دوي مركز شاك سنة كيلو واجبي حج ده سؤال سكوت ده وحوي سنة كيلو حج وما سنت هاي سؤال لا حوي شاك جبر نين كده النبي هاي ويل كده النبي هاي أبيه النبي هاي ولا الكده النبي هاي سكوت ده شوات فاطمة بنت رسول الله isku day wanaagsan ugu horeyn waxaan ugu bilaabaysaa magacaaga iyo sidoo kale si aad u aragtay barnaamijkan ugu horeyn waa salaamayaa reegal kacyado dhamaantood gaar ahaan waxaan salaamayaa Saxaaba TV oo TV-ga ah TV kaliya oo soo sidaaya arrimaha diinta ku saabsan arrimaha diinta magaceygana waxa weeye Maxamed maadaama hadda galkacyaan ku cusbahay oo ka imaado wadamo kale waxaan hadda horta Saxaaba TV aad u jeclaaday in su'aalaha ay weydiisaan Maxamed ma sha Allah ma santahay sida wanaagsan ee aad noo dhiirigelisay
su-aasha kale waxay ku leedahay sheeg sanadkii la waajibiyey xajka sanadka la waajibiyey xajka waxaan isleeyahay sanadka lixaad su-aasha waxay ku leedahay sheeg afar nebi oo isdhashay afarta nebi isdhashay waxaan isdhihi karaa nebillaahi isxaaq nebillaahi yacquub isxaaq nebillaahi ibraahim ilaa nebillaahi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam ku soo dhawow barnaamijka su'aalaha iyo saxaaba TV ee arrimaha diinta adoo noogu bilaabaya magacaaga marka koowaad waa dhawahay walaal waa dhawahay magacaygu waa Saadiq Shaale Cilmi waana ku dhawahay barnaamijka maasan tahay su'aasha koowaad oo weydiinaya waxa weeye sheeg madaxweynihii islaamka xilligii la furtay Baytul Maqdis yaa ahaa madaxweynaha islaamka ama amiirka muuminiinta yaa ahaa hadaa isku dayo xilliga macnaha madaxweynaha markii la furanayay Baytul Maqdis waxa madaxweyne ahaa Umar bin Khadaab maasan tahay su'aasha kale oo weydiinaya waxa weeye sheeg waxa sheegtaa gabar aabaheed nabi yahay nabi waa aabaheed sidoo kale to ninkeeduna waa nabi wiilkeeduna waa nabi walaalkeeduna waa nabi gabadhaas magaceeda su'aashaas way u adagtahay niyo garan maayo ma sheegi karo Saadiq maasan tahay ma sha Allah waxaan ku jirnaa barnaamijkeena su'aalaha diiniga ee saxaaba TV ku soo dhawow horeyn magacaaga iyo sida aad aragtay barnaamijkan diiniga ee khamiis jimcada ka baxa saxaaba TV magacaygu waa Sakari Saad Cismaan oo ku nool magaalada Gaalkacyo waana soo dhaweynaa su'aalaha la weydiinayo maasan tahay su'aasha koowaad oo weydiinayo waxay ku leedahay sheeg saxaabiga leeyahay Anas bin Malik imise sano ayuu nabigeena khaadim u ahaa oo u adeegayay su'aasha isku day waa 10 sano maasan tahay su'aasha waxa weeye Sakari waxa sheegtaa sheeg gabar aabaheed nabi yahay ninkeeduna nabi yahay wiilkeeduna nabi yahay walaalkeeduna waa nabi noqday dhamaantood nabiye ilaahay ka mid noqday jawaabteeda ku weydiinayna jawaabteeda ma hayo waa maasan tahay barnaamijkeena su'aalaha ee bara diintaada oo ka daawanaysaan TV-ga saxaaba YouTube-keena iyo page-keena Facebook